kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka Garmaal TV kuwada ugu waaweyn waxaa kamid ah golaha wasiirada Soomaaliya oo ka laabtay go'aankii laga gaaray ururka ONLF sidoo kale qodobada warka aad ku daawan doontaan waxaa kamid noqonaya xildhibaan Cabdi Shire oo go'aan lama filaan ku dhawaaqay Mustafa Cagjar oo ka hadlay go'aankii golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ay ka gaareen ururka ONLF sidoo kale qodobada warka aad kaga bogan doontaan waxaa kamid noqonaya madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug oo lagu xanibay garoonka magaalada Hargeysa qodobadaas iyo qodobo kale ayaad kaga bogan doontaan wararka Garmaal TV ee ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan aynu ku bilownay golaha wasiirada Soomaaliya ayaa ka laabtay go'aankii laga gaaray ururka ONLF golaha wasiirada xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya ayaa yeeshay kulan aan caadi ahayn oo looga hadlayo go'aankii ay xukuumaddii hore ka gaartay ururka ONLF ee Soomaali Galbeed iyo dhiibistii Cabdikariin Qalbi Dhagax xukuumadda Soomaaliya ee uu hogaamiyo Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa ay ansixiyeen in markaasi laga laabto go'aan ay gaartay xukuumaddii Khayre sanadii 2017 kaasi oo Soomaaliya ay ururka ONLF ugu aqoonsatay inuu yahay mid argagixiso sidoo kale waxa uu golaha wasiirada sheegay inay qalad ahayd dhiibistii Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax ee lagu gacan galiyay dowladda Itoobiya warka golaha wasiirada ayaa lagu yiri kadib markii ay ogaadeen in dastuurku markaasi Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qodobkiisa 36 uu mamnuucayo in qof loo dhiibo dal kale haddii aanu jirin heshiis si cad markaasi u fasaxaya isu dhiibista qof kala dhiibayana aan markaasi eed loogu soo oogin amaba ayna maxkamadi xukumin isla markaana dhiibistiisa aan loo marin wadada sharciga qeexayo kadib markii ay ogaadeen oo ay xaqiijiyeen in aanu jirin heshiis isu dhiibis oo Soomaaliya ay la gashay dowladda Itoobiya kadib markii ay u cadaatay golaha wasiirada in dhiibistu sharci darro noqonayso haddii aan la buuxin labada shardi ee uu dhigayo qodobka 11aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo kala ah in falka uu geystay kan la dhiibayo uu dambi ka yahay dalka wax dhiibaya iyo waliba kan loo dhiibayo labadaba iyo sidoo kale in haddii uu dambiile noqdo qofka la dhiibaya aanu dambigiisu ahayn mid siyaasadeed kadib markii ay soo xaqiijiyeen xubnaha golaha wasiirada in Cabdikariin Qalbi Dhagax ay dowladda Itoobiya u haysatay arrimo siyaasadeed oo maanta aan dambi ka ahayn Itoobiya Soomaaliyana aan sharcigeedu marnaba dambi ka dhigin kadib markii uu ogaaday in ururka ONLF aanu marnaba ku sifoobin sharciyada caalamiga ah ay markaasi u qeexayaan argagixisada oo dalka kaliya ee argagixiso ay u aqoonsan tahay ay tahay dalka Itoobiya oo uu ka dhaxeeyay dagaal siyaasadeed oo iyaduna hadda ka laabatay go'aankaasi uu haatan ururka ONLF si caadi ah uga howlgalo gudaha dalka Itoobiya kadib markii uu ku qancay in uu dhiibista Itoobiya loo dhiibay Cabdikariin Qalbi Dhagax 28 Agoosto sanadii 2017 iyo go'aankii golaha wasiirada ee 6 Sebtembar ee ururka ONLF loogu aqoonsaday argagixiso aan loo cuskan wax sharciyada ah ayna markaasi baalmarsaneed dhammaan shuruucda kor lagu sheegay kadib markii golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya si cad ay u diideen in ururka ONLF argagixiso lagu tilmaamo iyo in Cabdikariin Qalbi Dhagax loo dhiibay Itoobiya aan wali golaha wasiiradu bedelin go'aankiisii uu ONLF ugu daray argagixisada uusan qirin qaladkii dhiibista Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax iyo golaha wasiirada xukuumadda xilgaarsiinta isku raaceen qodobka koowaad in dhiibistii Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax ay ahayd xadgudub lagula kacay dastuurka ku meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qodobkiisa 4 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qodobkiisa 11aad iyo waliba habraacyada uu jeexay habka xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qodobadiisa 278 iyo waliba 279 qodobka labaad in dhiibistu ay xadgudub ku ahayd xuquuqaha shakhsi ahaaneed ee Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax sida xaqa qofka uu markaas u leeyahay xorriyad iyo waliba ammaan ee lagu xusay qodobka 15aad ee dastuurka iyo waliba xaqa madaxbanaanida aragtida iyo waliba xoraanshiyaha cabirka ra'yiga ee ku xusan qodobka 18aad ee dastuurka ku meel gaarka ah qodobka saddexaad in dhiibistii Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax ay si weyn markaasi uga hortimid dareenka iyo waliba mabaadida shacabka Soomaaliyeed dal iyo dibad qodobka afraad haddaba dowladda Soomaaliya waxa ay raaligelin buuxda ay ka bixinaysaa gifkii lagula kacay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax qodobka shanaad ee golaha wasiirada ay soo saareen waxa lagu yiri in ururka ONLF aanay dowladda Soomaaliya u aqoonsaneen argagixiso oo go'aankii golaha wasiirada uu 6 Sebtembar 2017 ONLF ugu aqoonsaday argagixiso uu ahaa sharci darro
halkanna lagu baabiyey sida golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ay go'aankooda ku sheegeen. maanta oo taariikhdu tahay 23 bisha Janaayo 2022 waxaa inoo qabsoomay shir aan caadi ahayn oo ay iskugu yimaadeen golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo uu shir gudoominayay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble. shirka waxaa lagu bilaabay qodobadii caadiga ahaa inta badan shirka hortabinta u leh sida amniga, arrimaha amniga, doorashooyinka, abaaraha iyo caabuqa COVID-19. shirka waxaa xigay in lagu ansixiyay xubin ka mid ah guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka, xubintaas oo la ansixiyay Xaliima Jaamac Afrax. wuxuu uga gudbay shirku inuu si xoog aad uga doodo qaraar horey ay golaha wasiiradu u gaareen oo ku saabsanaa Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax iyo in lagu sheegay ururka ONLF inuu yahay urur argagixiso ah. golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya asagoo tixgeliyay dastuurka ku meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliya qodobkiisa 36 iyo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, isla markaana xusay inuusan jirin heshiis u dhaxeeyay dowladda Itoobiya iyo dowladda Soomaaliya oo ku saabsanaa isku celin ama isu dhiibis shakhsiyaad. kadib markii ay u cadaatay in uu ka soo horjeeday xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ee dhiibista Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax, ayaa goluhu wuxuu sidoo kale cuskaday go'aankii golaha baarlamaanka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay si buuxda ugu diideen dhiibista Cabdikariin iyo go'aankii golaha wasiirada ee tibaaxayay in ururka ONLF uu yahay urur argagixiso ah. haddaba golaha wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxay raaligelin ka bixiyeen arrinkaas, sida oo kale waxa ay meesha ka saareen oo baabi'iyeen qaraarkii horey golaha wasiiradu uu ugu sheegay ururka ONLF inuu yahay urur argagixiso. dhinaca kalena xildhibaan Cabdi Shire ayaa qaatay go'aan lama filaana. xildhibaan Cabdi Shire Jaamac Ciyaar Jecel oo ka mid ahaa xubnihii golaha shacabka baarlamaankii 10aad ee Soomaaliya waxa uu shaaciyay in uu ka haray in mar kale uu u tartamo kursiga uu ku fadhiyo. Cabdi Shire ayaa sheegay in tartanka ka mid noqoshada baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya uu uga haray maadaama uusan aqoonsaneyn sharciga uu dalka xilligan ku aaday doorashada dadban, kaasi oo uu sheegay in markaasi ay ka dhalatay sida ay wax ku socdaan iyo weliba boobka baahsan ee ka jira doorashada golaha shacabka. laba xildhibaan oo aniga ku jira xilligii la ansixinayay sharciga doorashada dadban lagu aaday waa diideen. dad badan oo maalintaasi ila yaaban markaa diiday hadda waxa ay ugu taageereen go'aankaas masiiriga ah ee aan qaatay. go'aankaas waxa uu ahaa mid ka turjumayay waxa aan siyaasadda ka aaminsanahay. waxa haddana idiin muuqda foolxumada ka socota maamulada dalka oo ay balmareen habraacyadii iskana soo qoranayaan qofka ay rabaan, ayuu yiri. waxaa ku wargelinaya ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan beesha iskale kursiga tirsigiisu yahay Hoob Eber 89 in aanan difaacanaynin oo aanan u tartamaynin sababaha aan soo sheegay awgood, ayuu yiri. sidoo kale waxa uu musharaxiinta kursiga uu isaga haray u hanqaltaagaya u soo jeediyay in markaasi ay ilaaliyaan maamuuska iyo weliba magaca kursigan oo uu ka asteysan yahay xor iyo weliba xalaal sida uu sheegay. Ciyaar Jecel ayaa maamulka Galmudug ee uu hogaamiyay Qoorqoor uga digay in markaasi uu isku dayo inuu musuqmaasuqo kuraasta golaha shacabka oo uu ka mid yahay midka uu isaga xilligan isaga haray. doorashada waa inay noqoto mid markaasi qabiilada iska leh kuraasta si xor iyo xalaal ah markaasi ay ugu tartamaan. waxaa uga digaya in la isku dayo faragelinta kursigan, waxaana qabaa in haddii loo madax bannaan waayo kursigooda uu dhici karo qalqal amni oo saameynaya guud ahaan Galmudug, ayuu yiri. hadalkan waxa uu imaanayaa xilli ay dalka ay ka sii socoto doorashada golaha shacabka kadib heshiis ay 9kii bishan ay gaareen madaxda golaha wadatashiga qaranka ka oo lagu heshiiyay in 25 bisha soo aadan lagu soo gabagabeeyo doorashada xubnaha golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya. dhinaca kalena Mustafa Cagjar ayaa ka hadlay go'aankii golaha wasiirada ay ka gaareen ururka ONLF. madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook waxa uu kaga hadlay go'aanka golaha wasiirada Soomaaliya ay ku gaareen in ONLF lagala laabtay oo aqoonsanaantii urur argagixiso.
waxaan si weyn u soo dhaweynayaa go'aankii golaha fulinta ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ay ku buriyeen go'aan hore ururka ONLF loogu aqoonsaday inuu yahay urur argagixiso ah gacan cadawna lagu geliyay halgamaa Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax ayuu yiri. Go'aankaas hore waxa uu ahaa ficil argagax geliyay shacabka dulmanaa ee deegaanka Soomaalida, xadgudubna ku ahaa dhaqanka dowladnimo, kan Soomaalinimo iyo waliba kan Islaamnimo sida uu tilmaamay. Waxa kale oo aan dhaleeceynaya ficiladii la midka ahaa ee deegaano kale oo Soomaaliyeed cadow ay ugu soo gacan geliyeen halgamayaal Soomaaliyeed oo diidanaa tacaddigii lagu hayay dadkooda. dhinaca kalena madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug ayaa lagu xanibay garoonka magaalada Hargeysa. Madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf ayay hay'adaha ammaanka Somaliland ka hor istaageen inuu gudaha u galo magaalada Hargeysa. Wararka intaasi waxay ku darayaan in Axmed Ducaale Geele Xaaf madaxweynihii hore ee Galmudug uu magaalada Hargeysa u tagayo arrimo gaar ah iyo waliba ganacsi. Xaaf ayaa dhowr jeer waxa uu magaalada Hargeysa u tagay isaga oo aan xilligaasi ahayn madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug. ma cadda sababta loogu diiday inuu gudaha u galo magaalada Hargeysa. Guud ahaan waxaa intaasi ku soo gabagabeynayaa wararkii aad kala socoteen Garmal TV tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.